soo dhawaada asxaabay muuqaalkan waxaan ku soo aruuriyay kalibiya aad u xiiso badan oo ku jira internetka waxaan rajaynayaa inaad ka wada heli doontaan haddaba aan guda galno waxay u muuqataa afuufidda baashan si loogu soo saaro codka inay tahay mid aad u adag ninkani mootada wuxuu u wareejinayaa qaabkan taasoo ah tijaabo u keeni karta halis naftiisa hore ma u aragtay mas biyo cabaya haddaba haddii aadan arag daabo maskan aadka u haraadsan waa arrin aad u dhif ah in dhowr jeer oo isxiga uu ka dhaco xilaac hal meel waxay noqotay nadiifinta gudaha gaariga mid aad u fudud markii la helay baashan gariirisada ah waa waxa uu sameeyo duuliyaha aadka u xirfadda badan uma adkaysan gabadhan jugta uu u geystay qoriga kadib rididda xabaddiisa horey ma u aragtay lahod ama maxaar socda burburidda buuraha barafka waa mid aad u argagax badan waxay u muuqataa mootadan in uu ku xiran yahay matoor aan hore loogu arag mootooyinka kale waa wax aad u xiiso badan haddana leh cabsideeda inaad gaarigaaga ku kaxaysid bundadan samaynaysa ee ku taala Shiinaha wuxuu gaaska ugu soo baxayaa godadkan si awood leh ma tirin kartaa inta jeer uu hawada isku kala gedgediyey ninkan ku kaxaynta baaskiil meeshan oo kale waxay u baahan tahay geesinimo dheeraad ah waxay sameeyeen shimbiraha muuqaalo farshaxameedyo aad u cajaa'ib badan nasiib wanaag qofkani waxa uu ka soo degay buurta barafka ka hor inta aysan soo dumin qarax ayaa loo adeegsanayaa si loo dumiyo buurtan dhagaxa ah dhinac ka mid ah wuxuu sameeyey duuliyaha gambis aan caadi ahayn asigoo adeegsanaya helikabtartiisa halkan darawalku wuxuu isugu dheelitirayaa kaxaynta gaarigan qaab aan la rumaysan karin halkan biyaha waxay u soo baxayaan si awood leh xitaa heer ay sare u qaadayaan ninkan haweeneydan waxay soo heshay hab cajiib ah
oo lagu samayn karo kala fogaanshaha dadka. Ma noqon hal shaashad mid kaafisa ninkan in uu shaqada ku qabto. Markaad tahay qof hal abuuro ah, xitaa ka shaqaynta dhanka dhismaha kuma noqonaysa mid aad ku dareento caajis. Guusha taageerayaashii ugu badnaa ee ka qayb qaatay isku dabatixidda koobabka caaga ka samaysan. Taayarka gaarigan waxa uu si farsamaysan u kala jeexay taayar kale. Ka duulista diyaaradda wadadan boorka leh waa mid uu ka soo baxaya muuqaal aad u cajiib badan. Wuxuu ku sigtay dhagaxa inuu ku gaaro qaabkan daanta kale ee harada. Durba wuu gartay ninkan xirfadda sare oo ay gabadhan u leedahay kubadda cagta. Waxay ku sigatay miyaaradda hore ee gaarigan inay la burburto daraadda samiicadaha ka daara muusigada aadka u sareysa ee ku jira gaariga. Sidaan ayuu u muuqdaa dhulka markii xilli abaaruhu ku dhuftaan togaga Texas. Wuxuu ku dejiyay ninkan baarashuudka garoonka dhexdiisa si toos ah. Waxaad arkaysaan waa mid ka mid ah noocyada kuwa ugu layaabka badan ee dhifka ah ee qandiilada badda. Noogu reeb qoraal qaybta faalada haddii aad horey u aragtay mid ka mid ah qandiilada badda. Daanyaradan waxay u muuqdaan sidii kuwa tababar ku qaadanaya fiilooyinkan korontada. Wuxuu kiciyay nibirigan aadka u weyn argagaxa dadkan waqtigooda qaadanayay. Ugu dambeyntiina muuqaalkan waxa uu ina tusayaa habka loo dumiyo dhismayaasha casrigan.
halkan ayuu noogu egyahay muuqaalkeena. fadlan haddaad ka heshay muuqaalka like saar kana soo dhiiba aragtidaada, hana hilmaamay inaad kanaalka Caalam subscribe saarto si aad ula socotid muuqaaladeena soo socda. la kulan dambe oo xiiso leh.